wuxuu sheegaa asagoo 16 sano jira oo aan dambiile ahayn meel kastoo istaago in loo joojin jiray because colorka skinkiisa in loo joojin jiray asagoo wali minister oo dawladda kamid ah in haddii meelaha qaarka ay tago wali la joojinayo oo ay dhibaatadiis ay jirto ama ha ahaato North America ama wadamo kale ha ahaato qofku waa inuu og yahay in dadka dhalinyarada lagu tilmaameysanayo colaad ama dhibaato ama colorkooda ah ama diintooda ah ama culturekooda ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والاليال وإن السلام يا ملك استود جوكتان وولالكين فرحان واي waxaan rabaa maanta message yar inaan la wadaago waalidiinta ama waayeelka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay marayaan dib aad iyo aad u badan oo u baahan in lala qaybsado si haddii alla yiraahdo markay dheefo timaado ay waalidka iyo waayeelka Soomaaliyeed ugu yeeshaan wanaag hadday nool yihiin iyo hadday dhintaanba in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajirka siiyo wanaaga ay u geystaan ama wanaaga ay ka qayb qaataan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan fiirsanayay shalay video Columbus Ohio wiil Soomaali ah oo lagala baxay kaliyaha oo maaragtay waalidkii ay aad u cabanayaan mana ahan mid asaga kaligiisa waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo fara badan oo siyaabo kala duwan ugu dayacan adduunka daafaheeda ama xabsiyaha ugu dayacnaadaan ama badaha ugu dayacnaadaan ama shaqo la'aan iyo gaajo haysa ugu dayacnaadaan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta sida wiilkaas Ilaahay ha u naxariisto waalidka sana samir iyo imaan Allah ka siiyay ba waxa ay la kulmayaan dhibaatooyin aad u fara badan oo u baahan dadka waayeelka ah inay u istaagaan arintaas kana diidiyaan haddii markii aanu soo kornay in Soomaaliya aanu wadan nabada ku soo kornay oo aan laga qabin cabsi fara badan waxyaabaha maanta adduunka ka jira adduunku maanta waa ka duwan yahay wuuna ka xasarad badan yahay tusaale ahaan Soomaalida inteeda badan waa dhaqato xoolo dhaqato waay haddaad xoolo leedahay oo xoolahaaga aad soo dejiso ama aad timaado kayn libaaxu uu ka qaylinayo suurtagal ma ahan inaad kayntaas inta ku sii deyso libaaxu ka qaylinayo aad uga seexato ama aad maaragtay daaq ugu dirto adoon waardiye ama dabagal u sameeynin xoolahaaga maanta waxa la dabagalo maanta waxa la daba socdo maanta waxa u baahan hawl waa ilmaheena iyo dadka yaryarka ah allaha u naxariisto sheekh sideetameeyadii tasfiirka culimada waaweyn oo Soomaalida kamid ahaa oo la oran jiray sheekh Maxamed Macalin Xasan wuxuu yiri qurbaha aadideedu waxa loo aadayo waa laba sababood waxa laga dheefi doonana waa laba sababood asagoo waagaas aad uga soo horjeedo dadku inay aadaan wuxuu yiri waxa aad ka cararaysaan waa gaajo waxa aad ka cararaysaan waa colaad waxa aad u cararaysaan oo meeshaas kala kulmi doontaana waa fidno iyo fisqi waay ma jirto fidno iyo fisqi ka badan qofka in lagu target gareysto diintiisa iyo kalarkiisa wax ka dhib badan ma jiro qofka Soomaaliga oo laga yaabo inuu halkaas tagano wuxuu u qabaa maadaama uu qurbo yimid in dadkoo dhan ay dad saalima ama wanaagsan yihiin laakiin ayadoo dad fiican ay ku jiraan baa waxaa dhacda dad aad iyo aad u xun oo khabiisa oo dhibaato aad u badan dhalinyarada u geystaa inay ku jiraan waxa tusaale kuugu filan wasiirka ama ministerka immigrationka ee wadanka Canada walaalkeen Ahmed Hussein oo wadanka Canada ku tagay 16 sano haddaad haysato taariikhdiisii uu soo maray dhibaatada uu la kulmay oo ay wali ay saameyn ku leedahay maanta marka uu ka sheekeeyo in ay dilaan si publica maadaama ay immigrant tahay madow tahay muslim tahay khamaar ay xiranayso dadkaas heerarkaas gaaray dhibaatada ay marayaan ma aha ilmaha aad garanayso ama adeerka u tahay ama adigu aad dhashay ama aad qurbaha la joogto in aysan ayagu mareen waxa muhiim ah marka inaad ka warqabto oo aadan u aaminin ninkan waa askari ninkan waa maxkamad ninkan waa macallin aadan u aaminin aad la socoto oo aad og tahay dibka dhalinyaradu ay marayaan iyo sida looga hortagi karo nin dhalinyaro ah oo masjidka Daarul Faaruq ka shaqeeya oo dhalinyarada aad active ka ah oo la yiraahdo Khalid Umar baa wuxuu iga sheekeeyay Minnesota markuu dhiganayay iskuulka hoose farmuuqa ama dhibaatada lagu hayay koridiisii iyo sida Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga badbaadiyay iyo inuu ku guuleystay maanta inuu noqdo one of the social workers dhalinyarada Soomaaliyeed dhisideeda iyo kor u qaadideeda uu ka shaqeeyo maadaama asagu uu ku soo maray dhibaatooyin aad u fara badan haddaba waxay intaas oo dhan ku cadeynaysaa
in dhibaatada dhalinyarada haysaa aysan ahayn mid ayaga kaliya khaas u ah ay tahay mid caam ah oo dadkoo dhan ay wada qabeen laakiin maanta ay ka dhib badan tahay maadaama dhalinyaradu si xanaaq leh ay askartii ugu jawaabayaan ayagoo laga yaabo qaarkood askartaas inay caro u qabaan maxkamadaha inay sidoo kale ugu dhibaataysan yihiin xabsiyada si ugu dhibaataysan yihiin maxaa marka looga hortagi karaa waalidka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in aanan ku noolayn meeshii aan ku noolaan jirnay ee macalinka dugsiga ama macalinka iskuulka booliiska maxkamadu laga yaabo inaysan farmuuq dhibaateed ama kalareed ama diineed uusan qabin ee ahayd waxaan ku wada simanahay maadaama aan kalarka wada nahay waxa marka looga hortagi karaa saddexdan qodob aan isleeyahay intaan anigu aqoon u leeyahay waxay noqonaysaa xal fiican waxa dad dantooda ka shaqeeya dawlad ama qof waldankaas jooga ha ahaado ama qof qurbaha jooga dadka waxa dantooda danta guudna ka shaqeeya waa dawlad waay maadaama maanta aanan dawlad qabin midda labaad oo loo baahan yahay Soomaalidu maanta inay ku tiirsato oo u baahan inay fadhiga ka kacaan waa culimada Soomaaliyeed ee ku amaanan Ilaahay khayr ha siiyo inay dhisaan meel walba masaajid ka dhisaan waxaanu nahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin dadka ugu masaajida badan meel kasta oo aan u qaxnay oo aan tagno laakiin ra'yi ahaan anigu waxaan soo jeedin lahaa inuu masjidku noqdo meeshii ummadda not only salaada kaliya lagu tukan lahaa laakiin danahooda dhan looga hogaamin lahaa waxaa jira oo yaqiin institution ay samaysay 1900 qofka aan taariikhda ka madow waxaa easy waxa dhacay inuusan adduunka ka warqabin 1900 dadkii ka soo qaxay Syria ee wadamada maaragtay hadda inta ugu badan aan joogna waxaa dhacday masaajidkii ugu horeeyay Idaho ayaga ka dhisay masaajidkii kale ayaga ka dhisay Wisconsin waa masaajidii ugu horeeyay ee Mareykanka laga dhisay sida yaqiin institutions aan ka soo xiganayno laakiin dadkii masaajidaas dhisay oo maaragtay hawshaas qabtay waxa kala gooyay in waayeelkoodii uusan dadkoodii yaryaraa aysan isku xirmin in dadkii yaraana ay systemka ku xirmeen dadkii weynaana masaajida ay ku xirmeen markaad aragto masaajida inta ugu badan aan dhisaynana waxaad arkaysaa waxa wali ku tukanaya Ilaahay khayr ha siiyo waa dad waayeel ah laakiin dhalinyaradii ay maqan tahay diinteena waxay aad u amaantaa oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka hadlaa waxa la yiraahdo xigmadana waxay ku jirtaa qofka inuu fahmo luuqadda dhalinyarada waxa wax ku gaarsiin kara qof dhalinyara marka culimada alxamdulillah Ilaahay khayr ha siiyo masaajida aadka u fara badan noo dhistay inay u ogolaadaan inay dhalinyarada iyo dhibka maanta jira ay ka wacyigeliyaan waaridka iyagu ay noqdaan hoygii salaadana meesha lagu tukan lahaa dhalinyaradii iyo dadkii iyo dhibaatada jira waa midda labaad oo dadku ay ku badbaadi karaan sidaan aniga isleeyahay tan koobaad maanta ma haysano waa dawlad oo ama ha u soo dirto qusliyad ha u soo dirto ama qof ha u soo dirto ama qof la dilay ama qof xabsi ku jira ama dad la dhibaateynayo tan labaad inay noqoto masaajidu inay noqdaan meesha aanu ka helayno caawinta aan ka helayno tan saddexaad waxa waaye alxamdulillah meel kastoo aan joogno haddaan Soomaalinahay ganacsataan leenahay qofka ganacsatada waxa laga rabaa wax la yiraahdo gift bag inuu u sameeyo dadka gift bag macnaheedana waxa waaye waxa aad faa'iideyso dadka aad ka faa'iideyso inaad wax ku celiso waxyaabaha ugu badan oo lagu celiyo oo wadamadaas ka shaqeeyna waxa waaye qofka ganacsadaha inuu abuuro wax la yiraahdo foundation ama funding ama dhaqaale loogu talagalay dhibaatooyinka haysta ummadda haysta oo caamka ah in maaragtay ama taxi ha looga faa'iideysto ama dad ganacsato isku tagta in arintaas ay dadku u qubaan marka saddexdaas qaybood waxay sameyn karaan inay dhalinyarada dhibka haysa laga wacyigeliyo qofka dhalinyarada ah ee la target gareynayo ee ku dhibaataysan ee laga yaabo in ama kalarkiisa ama diintiisa ama maaragtay meesha uu ka soo jeedo lagu dhibaateynayo in laga dhiirigeliyo inaanu ogaano meeshii aan dadka intiisa badan ku koreen inaysan dhalinyaradan ku koreen taasoo yareyn karta ama minimize gareyn karta dhibaato aad u fara badan oo dhalinyaradu ay u baahan tahay in laga caawiyo laga garab istaago waxaad ogaataa adduunku waa jiils waay waa dad isbedelayo waay adiga wiilka aad dhashay ee maxamed la yiraahdo nabi ilaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam aad ugu magac dartay waxaa rabtaa nad inuusan magaca maxamed wadan kaliya inuu akhlaaqdii iyo diintii nabi ilaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam laakiin maalinku hiile kaaga baahan yahay haddaadan garab istaagin ama aad fadhi ku dirir ama meel kale taagto de marka ma dhacayso inuu magacii iyo maaragtay akhlaaqdii nabi ilaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam wata ma dhacayso marka dhalinyaradu dhiir waxay u baahan yihiin hiile u baahan yihiin systemka hiile uga baahan yihiin in la garab istaagay u baahan yihiin ayagoo dadkoo dhan aysan wada xumayn ba inta xun si adag farta ugu fiiqaysa waxaanu dhiirigelinaynaa
inay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo joogaanba ay uga baahan yihiin dadka waayeelka dhiirigelin hadduu message-keenan ku soo gaaro fadlan gaarsii dadka kale waayeelka ah adduunka midnimo iyo isku tag baa wax lagu qabsadaa waxaad arkaysaa markii adiga ama qof aad garanayso wax soo gaaraan waad la xanuunsanaysaa laakiin xanuunkaas waxa laga rabaa qof kasta oo Soomaaliya oo meel kasta jooga inaad saas ula xanuunsato markaan isku tagno Soomaalinimadeena iyo dhalinyaradeena dhiirigelinteena u wada istaagnana waxaanu ka dhiirigelin karnaa in ka badan meel kaliya in ka badan qof kaliya oo dhalinyaradeena oo dhan ay wada gaaraysa waana in salaam iyo walaalayaal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh